waqtigaaga haddaad manage garayso wax kastoo aad doonayso waad gaari kartaa everything adigoo maanta aan alif aqoon haddaad go'aanka qaadato inaad wax barato jaamacad waad ka bixi kartaa adigoo aan farta sida loo qoro aqoon hadaf markaad yeelato tallaabada koowaad baa ugu adag wax kastoo nolosha aad bilaabayso bilowga adag naftu markay la qabsato wax fudud buu iska noqdaa aad ku dhaqantid laakiin bilowgu mar kasta wuu adag yahay waana laga yaabaa inaad mar dhacdo oo laba dhacdid oo saddex dhacdid laakiin lama quusto waad ku qasbantay inaad dhimato ilaahay hor tagto ama janno gashid ama naar gashid waad ku qasban tahay haddaad janno doonayso ay hadaf kuu tahay janno noloshaada adduun oo dhammi waa inay ku salaysnaataa sidaad hadafkaa u gaadhi lahayd iyo ilaahay raalli hashiisa dhallinyaroy waxaan leeyahay akhriya adduunba waa xoogsan karaysaane cayaarta dhaafa nolosha dhab u waajaha si dhab ah nolosha u waajah waxaad go'aansatana waad xaqiijin kartaa waa inayd yeelataa to do list qaa'imat alacmaal بري أما أسبوعا محط قبض دون تاينات قرنس to do list وحن رباين نقبطه شيء يا شيء يا شيء يا شيء لا بس أنا كذب وحن رباين هلكا تشوفه سيدان هلكا وقارة يا لا بس أنا كذب وحن وقارة يا سيدا يا سيدا يا سيدا هلكا إن قارة محا عرقلة ضيقة وحايا وحايا وحا وسيدا أدو قان قادة نرش وسيدا أهداف أصميسته goal سيدا أدو أصميسته sidee baa looga faa'iideeyaa waqtiga haw waabad go'aansatay har waqti dambe yuu kaa lumin sidee looga faa'iideeyaa sidee buu waqtigaagu mid midho dhala u noqon karaa waxay idhahdeen kow waa inaad hadaf yeelataa hadafku waa gool waa yool waa ujeeddiya meel aad u socoto waa inaad yeelataa haddaanad hadaf lahayn waqti kama faa'iideyn kartid hadafku waa waxa keenaya inaad wax hiigsato oo meel gaadhid waxaasaad rabtaa inaad gaadhid nolosha waxa kaloo dhammi markaa tuul waxay u noqonayaan saad waxa u gaadhi lahayd nolosha kaloo dhan waxaad u adeegsanaysaa saad waxa u gaadhi lahayd أهداف يريرو كسوكيسا جيريسا هدفك وين هادو صعوتو لكن واحد قبانا يسوردمي وينو نقضا هدفك كو غارسين كرايا واحد قبانا يسوردمي هدفك وحكو غارسين كرايا وينو هذا هدي أنا ساسي دعين وقتك أبو فائدة بدن يالن مايو هدف مركا ديالاتو تلابد كواد با وقادك وحكستون ولا شاد بلا بيسو بلا وقادك نفط markay la qabsato wax fudud buu iska noqdaa aad ku dhaqantid laakiin bilowgu markasta wuu adagi waana laga yaabaa inaad mar dhacdo oo laba dhacdid oo saddex dhacdid laakiin lama quusto inta hadafkaaga ka xaqiijinayso noloshu waa kufidiya kacid noloshu smooth maaha intaad hadaf dhigato shurrug intaad tidhaahda markiiba meel laga gaadhaa ma jirto sidaa maaha noloshu أنا أنت بدو حلقة ما تقول هذا هدف وين جامعة وين كبحة قرطي سبتي قاسن كبحية قرطي وهدف لكن محاك سكية عراقل بدك سكيسة هدي أنا ده هدف لهين هدا أنا تقول لهين وحد لم نقونيسا دون هرانو ميلا يكون سعتاني شرين هدين الدم بوحنون أنا بطل هدح سعوته صنو ولا نقول صور نقول ما ينك دون تعوضه دون سكرران أو بوحدة وأن ميل لبا وصعد وحلم إذا إنك سكرنا ولا أن هدف بلهين ساكعون صوتوس عاو ساحو الرسوكع صاد من ساحو صوتوس ساحو عن ميل وصعد ما جرتو إن شاء الله وحن بين نقضنا تابوها من سي نلشو سيدا حقيقة كما نغطو noloshu waa inay ujeeddo yeelataa iyo meelaad ku socoto مثلا qofka muuminka ah ujeedadiisa ugu weyn waxa weeyaan waa la dhimanayaa noloshani way gabagaboobaysaa aakhira lagu socdaa janno iyo naar baa jira ilaahay raalli gelintiisa waa ujeedada ugu weyn
waxaad hadaf leedahay ka sokeeyo oo dhammi weynay masalada u shaqaynayaan waxaad ahdaaf way nolosha halkaa meelaan hayn tegi mayso waad ku qasbantay inaad dhimato ilaahay hor tagto ama janno gashada ama naar gashada waad ku qasban tahay haddaad janno doonayso ay hadafku tahay janno noloshaada adduun oo dhammi waa inay ku salaysnaataa sidaad hadafkaa u gaadhi lahayd iyo ilaahay raalli hashiisa laakiin hadafna waan leeyahay waxaan wadaana hadafka uuma shaqeeyaan suurtagal maaha maadaama nolosheennu ay tahay hadafkaa weyn inaynu xaqiijino maalan iyo nabigu wuxuu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam aakhiro mu'minku waxyaabaha ugu murugo badan yahay waxaa ka mid ah laxda dunida ku soo martay oo aanu ilaahay dikrigiisu soo marin tira ayuu nabigu ku tilmaamay markaad saxaafada haddii lagu hor keeno ay ka soo baxdo intaasoo waqtiyo aanad ilaahayba xasuusanin waa waxyaabaha qofka mu'minka ahay ugu murugo badan yahay buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam tira bay maalinta qiyaama ku tahay ka labaadaan idin tilmaamaya waxa weeye hadaf ay yeelato ku kalaan tilmaamayaa ah waqtiga dhowr shaqaa la wada qaban karaa adigoo hadafkaagii u socda tusaalay bixiyaan qaarkood waxay yidhahdaan maalan haddaad weel weyn ama foosto gobolo ama yacni weel weyn haddaad lagu idhaha dhagxan waaweyn ku gur dee 5 6 7 dhagax markaad ku riddo waa maxay wuu buuxsamayaa haddii lagu idhaahdo markaa qururx ka dabagee dhagxan yar dhagxanta yar ridde meel ay ka gashuun bay helaysaa haddanoo waxaa laga yaabaa 2 baaldiyo qururaxa inaad dib ugu shubto haddii lagu idhaahdo ciid ka dabagee ciidduna meel ay ka gashuun way helaysaa waxaa laga yaabaa 2 baaldiyo ciidana inaad ka dabageyso baashi waa buuxdaa haddii lagu idhaahdo biyo ku shub haddana la waayi maayo biyuu meel ay ka galaan way sii gelayaan waxay idhahdaan waktiga bini aadamku si uga faa'iidaysta waa sidaa qof 4 dhagaxe waaweyn intuu ku ridaa buu idhaha waa buuxaa wakti ma hayaanu subaxi waan soo toosa soomaalidu maxay ka sheegeen waxay yidhaahdaan nin bay nacas ku sheegeen dadka oo dhan baa wada nacaskaasi in badanoo ka mid ah nin baa nacas ahayo geeljuro ahayo waxaa la yidhi war maxaad u cadayan weyd wuxuu dee maantiina geelaan raaca habeenkiina waan seexdaa goor baan cadayda shaqadiisii wuxuu ku soo koobay 2 waqtuun inay tahay 2 waqtina midna inuu hurdo midna inuu maxay xoolaha raacayo waxaa la mid ah in badan oo inaga mid sida inuu fakarnaa saasiya that's why aynu waqti u weyni salaam siinaya arday baa tahay maalan jaamacad dhigta meelihiina kan jaamacadaha ama shaqada minimum 20-30 minutes baa loo socdaa soo maaha inta ugu yar ama gaadhi wado ama tareen fuul ama waxaa fuul masli marka aad ka soo baxdo gurigaaga ilaa intaad shaqada ka gaadhayso ama aad ka gaadhayso jaamacadda waxaa laga yaabaa inay nus saac qaadato nus saaca maxaad qabataa ninkii aan sheegay sidiisii haddaad u fakarayso waxaad odhanaysaa jaamacaddii baan ku socdaa ood fadhiyaysaa markaa haddaad ninkaan sheegay sidiisii u fakaraysid waxaad leedahay shaqadii baan ku socdaa ood fadhiyaysaa haddaad se rumaysantahay hadafkana inaad ku socoto waktiganna inaad wax labaadna ka faa'iideyn karta ka waran haddaad tareefuushanto aad tiraahdo jiskayga qur-aanaan akhrinaya ka waran wardigaygii maantaan rogayaa xataa adigoo gaadhiga wada wardiga waad rogi kartaa gaadhiga afka lagama kaxeeye subxaana allah alxamdulilah ma odhan kartaa adigoo gaadhigaa ka wadaya intaad wardigi kartaa dhuso saacaas baad u malaynaysaa waxaa laga yaabaa every 2-3 minutes inaad 100 subxaanallah tidhaahdo every 2 minutes inaad 100 subxaanallah tidhaahdo imse goor baad subxaanallah ama astaqfirullah odhan karaysaa intaad gaadhayso shaqada uun maaha wakti aad meel fadho waxaa laga yaabaa haddaan ku idhaahdo maalintii waxaa lagaaga baahay inaad 1 jeer subxaanallah tidhaahdo anaga waktiba helaynaan 1 meel fadhiisana inta 1 jeer laga odhanayo 3,000 oo jeer baad odhan karaysaa haddii intaad shaqada ku sii socoto aad tusbaxaaga rogto taa macnaheedu waxa weeyaan waktiguna waa shaqooyin badan baa la qaban karaa isagoo waxaad u assign garaysay baad haddana
wax kale dhexdiisa sii qaban kartaa adigoo shaqada wadaad wardiyi kartaa shay kale aan tilmaamaya wuxuu yahay ilaahay quraanka wuxuu ku tilmaamayaa dadka habeenkooda ka faa'iideysta aakhiro siday u guulaysanayaan السهر الإيماني dadka habeenkoodii wax ka mida u soo jeeday inay ilaahay caabudaan siday aakhiro u guulaysan karayaan إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما أتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون هيوحوا ليكوا لك عبصدا آخر الجنوين iyo ila biyood bay ku raaxaysanayaan aakhidina ma ataahum rabbuhum wixii alla siiyey bay qaadanayaan innahum kaanuu qabla dalika muxsiniin adduunka intay joogeen bay ahayn kuwa samafala muxsina kaanuu qaliilan min alleyli maa yahjacuun